Ra'iisul Wasaarihii Itoobiya Abiy Ahmed Cali markan fariin calaacal iyo cata oo isugu jirta ayuu u diray Tigreegii maanta ayay mar kale Jaanis ku haystaan waa soo gala dagaalka ama xarada garab siiya militariga ayuu leeyahay laakiin jawaab kulul ayay dhankoodu siiyeen wararkii ugu dambeeyay Tigreeg warka ka soo baxay inuu eegi doona saaxiibayaal kumanaan ciidamo ah oo weli loogu sii daabulayo gobolka ama xarada ee ay dagaaladu ka socdaan faanana dagaalku ayay u diyaarsan tahay inay ka qayb qaadato wararkii ugu dambeeyay saaxiibayaal ayaan u eegi doona halka muuqaalka TV qaybta hoose wixii aragti oo aad qabto muuqaalka laagsaar u sheergalay haddii aanu ku bilaabno Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed Cali waxa uu markan u diyaarsaday ciidamo waaweyn oo tiro badan kuwaas oo wata hubka iyo taangiyada iyo diyaaradaha dagaalka waxaana si toos ah loo geeyay qaybo badan oo kamid ah gobolka ama xarada si aanu indho lahayn ayay ula dagaalamayaan ciidamada hubeysan ee jabhadda Faano waxa duqeynaya diyaaradaha droonka gaawaarida waaweyn ee taangiyada ayaa dagaalka qayb ka ah kuwaas oo duqeymo ka fulinaya buuraha ee ay ku sugan yihiin jabhaddan hubeysan ee Faano diyaaradaha ayaa ka dabagalaya hawdka iyo dhulka ay dhuumaaleys ahaan u joogaan xooggan Tigreega waxaana la soo warinayaa in xaaladuhu ay ku xun yihiin maadaama Abiy ciidamadiisu amray in aan si loo aabayeelin jabhaddan hubeysan ee Faano iyo cid walba oo taageero ah Abiy mar kale ayuu baaq adag ugu celiyay isla markaana u diray dhinacyada ka soo horjeeda oo uu kala jeedo Tigreeg waxa uu ugu baaqay in si toos ah iyo si dadban dagaalku ay ugu qayb qaataan waxa uu fariin calaacal u diray madaxda ugu sareyso oo ugu horeeyo madaxweynaha gobolka Tigreeg Getachew Reda iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale waxaana durbadiiba soo ifbaxaya in ay xaalad halis ah wajahayaan dhinacyada talaabadaasi waxa ay markan u muuqataa in ay Tigreegu waqti ama Jaanis ay ku haystaan isla markaana ay u arkaan in ay baabi'in karaan markan waqtigoodiina ay marayaan in Abiy ay kaga faa'iideystaan fursadan waa fursad weyn oo ay muhiimad gaar ah u leedahay in Tigreegu ay wax ay rabaan ku weydiiyaan maamulka Abiy oo ay ka heli karaan maadaama ay hadda muhiimad gaar ah u tahay ama muhiimad gaar ah u leedahay qorshahooda inay weydiiyaan waxa iyagu ay marsiisan rabaan taasi waxa ay muhiimad gaar u leedahay maamulkan waxaana ay bilaabaysaa wiji cusub oo la xiriira xaaladan iyo sidoo kale qaabka Abiy uu wajahayo in uu Tigreeg weydiisto garab aanu dhamaad lahayn waxaana taasi ay muhiimad u siinaysaa sida ay markale Tigreeg aaminsan yihiin in ayagu ay weydiiyaan Abiy shuruudo badan Tigreeg waxa leeyahay hubkoodii ayaa u aasan waxa ay ciidamadooda u diyaarsadeen si ka duwan sidii hore iyaga oo mar walba shaki ka qaba Abiy waxa uu rabaa in ama xaaro uu qoorta u geliyo Tigreeg hubkooda iyo sidoo kale ciidankooduba ay baaba'aan isla markaana ay ku baaba'aan Faano halka militarigu kor joogteen uu ka dhigi lahaa laakiin waa ay ku fahmeen Tigreegu iyaguna dhagaha ayay ka fureysteen baaq walba uu u diro ama uu u jeediyo ma aha mid ay ka soo jawaabaan oo ay iyagu ka soo falceliyaan laakiin dhagaha ayuu ka fureysteen dhanka kale xildhibaan Daahir Amiin Jeeso oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya waxa uu haatan ku sugan yahay furimaha dagaalka gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ka hadlay arrimo ku aadan hawlgallada ka dhanka kooxda khawaarijta shabaab ee haatan ka socday inta badan gobolada dhexe ee dalka Jeeso xildhibaankan ka tirsan golaha shacabka ayaa ugu horeyn taageero u muujiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya oo isagu hogaamiye u ah dagaalkan iyo jabka xooggan ee la gaarsiinayo kooxda shabaab ee ka dagaalanta qaybo ka mid ah gobolada dalka sidoo kale waxa uu tilmaamay haddii aanu la garab istaagin madaxweynaha inta uusan dhammaanin muddo xileedkiisa ay suuragal tahay in dalku u gacan galo al-shabaab siduu hadalka u dhigay madaxweynaha waan u hambaleynayaa fikir fiican ayuu qaatay isla markaana howl adag ayuu qabtay haddii madaxweyne xasan muddo xileedkiisa aan al-shabaab laga saarin dalka iyaga ayuu gacanta u galaa waa wax aan aaminsanahay ayuu yiri Jeesow kadib waraysi uu siiyay telefishinka Somali Cable waxa kale oo uu ku baaqay in la garab istaago madaxweynaha iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee haatan dagaalka adag kula jira khawaarijta al-shabaab si ay kaga adkaadaan al-shabaabna waqtigoodii iyo ayahooda Soomaaliya loo soo gabagabeeyo madaxweynaha la garab istaago ciidanka la garab istaago haloo hambaliyeeyo hala dhiirageliyo wax walba la siiyo ayuu mar kale xildhibaanku yiri ugu dambeyntii waxa hoosta ka xariiqay in xildhibaanada baarlamaanka oo fasax galay looga baahan yahay in ay ayaguna qaataan doorkooda ayna tagaan jiida hore iyo furumaha deegaanada ay ka soo jeedaan qoryaha ay qaataan dhiirageliyaan ciidamada si shabaab looga adkaado fariintan aanu dirayo waxa weeye xildhibaanada Soomaaliyeed waa in furumaha la tagaa oo la dhiirageliyaa ciidanka geesiyaasha ayuu hadalkiisa sii raaciyay hadalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo haatan guulo waaweyn laga soo hooyay howlgallada ka dhanka ah kooxda khawaarijta shabaab ee ka socda deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle oo dhul badan
lagaga saaray kooxdan al-shabaab dhulkaas oo ay maamulayeen 10 sano, waxaana hadda socda abaabul gale oo kooxda lagaga sifeynayo deegaanada iyo degmooyinka ay ka degan yihiin ama ay kaga sugan yihiin dhulka hawdka ah ee ku yaala deegaanadan aynu iminka sheegnay. dhanka kale haddii aynu eegno madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo bishii labaad wada hogaaminta dagaalka ay dowladda kula jirto khawaarijta shabaab ayaa dhawaan magacaabay saraakiil hogaamin doonta dagaalkan ujigiisa labaad. dadka uu magacaabo waxaa ka mid ahaa gaashaanle sare Dayax Cabdi Cabdulle oo ahaa taliyihii ciidanka sida gaarka u tababaran ee Kumaandooska Gorgor. waxaa la soo warinayaa in Dayax iyo xubno kale abaabul badan ay ka wadaan deegaano ka mid ah gobolada dhexe dalka Soomaaliya. Dayax waxa uu ahaa gaashaanle dhexe, laakiin waxaa loo dalacsiiyay gaashaanle sare, waxaana loo magacaabay taliyaha ciidamada lugta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan Gorgor. isla markii la magacaabay ra'yi kala aruurin iyo ra'yi kala duwanaansho ay dadku ka bixiyeen xilka loo dhiibay. hadaleyntiisa ayaa timid dib markii loo eego sidii uu ahaa xiriirkii u dhaxeeyay madaxweyne Xasan iyo saraakiishii xilligii dowladii hore ee Xasan Sheekh oo mucaarad ku ahaa. Dayax waxa uu ahaa taliyaha ciidanka aadka u tababaran ee Gorgor, kuwaas oo dhowr goor ishor istaaga banaanbax ay soo qabanqaabiyeen mucaaradkii xilligaasi oo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku jiray. ciidanka Gorgor waa ciidan sida Kumaandooska u tababaran oo dowladda Turkiga ay tababar siisay. ciidankaas waxay si fiican ay yihiin kuwo u qalabeysan, waxaana tiradooda lagu qiyaasaa in ka badan 2,000 oo askari. su-aasha hadda la isweydiinayo waxaa ka mid ah sida iyo sababta madaxweynaha Soomaaliya ugu dhiiraday in uu xil sare u magacaabo ama uga magacaabo militariga Soomaaliya taliyaha ciidanka Gorgor ee ahaa ciidankii hor istaagay markii uu mucaaradku ahaa. ciidanka Gorgor ayaa howlgal ku qaaday hotel uu ku sugnaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynihii ka horreeyay Shariif Sheekh Axmed bishii Febraayo 2021. halkaas weerar dagaal iyo sidoo kale dhiig badan ayaa ku daatay, waxaana la soo wariyay inay dagaalameen ciidamadan Gorgor ee ninkan uu hogaaminayay iyo ciidamo kale oo taabacsanaa labada madaxweyne. xilligaasi weerar ku dhacayo Dayax oo gaashaanle dhexe ah waxa uu ahaa taliyihii ciidanka weeraray amarkana bixiyay walow uusan wadan askarta hotelka gashay. madaxweynayaashii hotelka ku sugnaa waxay markii dambe eedda dusha ka saareen madaxweynihii xilligaas Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay ku eedeeyeen inuu isagu weerarku ka dambeeyay amarkana lahaa. laakiin saraakiil ciidan iyo aqoon-yahano ayaa aaminsan in magacaabista Dayax ay ku saleysan tahay kartidiisa iyo xirfadda dagaalgelinta ee uu u leeyahay oo xilligan loo arko mid muhiim u ah dagaalka al-shabaab. sarkaalkan waxaa lagu xushay kartidiisa iyo aqoontiisa ciidanka, waa lagula taliyay madaxweynaha inuu magacaabo si looga miro dhaliyo howlgallada hadda socda. tallaabadan waxay muujinaysaa in madaxweynuhu yeeshay bisayl iyo ka go'naansho in dagaalka lagu guuleysto lana ciribtiro al-shabaab oo uusan fiirin wixii hore usoo dhex maray isaga iyo saraakiisha ka tirsan dowladii ama ka tirsaneed dowladii Farmaajo, ayuu yiri Axmed Cabdullaahi Koobaale oo ka faalooda arrimaha amniga Soomaaliya. dadka yaqaana gaashaanle sare Dayax Cabdi Cabdulle waxay ku tilmaameen inuu yahay sarkaal dagaalgelinta ku wanaagsan, tababaro fiicanna qaba. waxaa kale oo isna madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dib ugu soo celiyay howlgelinta ciidanka taliyihii hore ee militariga Jenaraal Odawaye Yuusuf Raage. Odawaye waxa uu ka mid ahaa dadkii waqtiga dheer ku soo jiray dagaalka al-shabaab, wuxuuna hogaamiyay ciidanka militariga xilliyadii adkaa ee dagaaladii ugu qaraaraa ama ugu khasaaraha badnaa ay dhex mareen askarta dowladii al-shabaab sida Masaajid Cali Gaduud iyo Ceel Barte ee ka tirsan gobolka Bay. Odawaye waxa uu qayb weyn ka qaatay in dib loo celiyo askar ka soo gadooday Coosweyne markii ay al-shabaab ay duulaanka culus ku soo qaadeen. waa nin ciidanka aad u kala yaqaana ku soo dhex jiray ayna ka haybaystaan. taasi ayaa keenaysa in madaxweynuhu uu dib ugu soo celiyo howlgallada maadaama khibradiisa iyo saameyntiisa aad loogu baahan yahay xilligan xasaasiga ah, ayuu sii raacay Axmed Koobaale. dadka ka hadlay arrimaha la xiriira isbeddelka lagu sameeyay hoggaanka militariga qaarkood waxay aaminsan yihiin in saraakiishan iyo qaar kale oo uu ka mid yahay taliye ku-xigeenka cusub ee ciidanka xoogga dalka ay dhowaan la magacaabay inay soo kordhin karaan fikrado cusub oo dagaalka hadda ka socda Galmudug iyo Hirshabelle lagu soo kordhin karo si loo soo afjaro wejiga hore ee howlgalka ee 2 bilood oo iminka hogaaminaya madaxweynaha. dadkaas waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdifatax Qaasim oo bartiisa Facebook ku qoray Korneel Dayax waa hogaamiye lagu yaqaan karti iyo dhiiranaan, sumcad wanaag ku dhex leh ciidanka dhexdiisa, waa hogaamiye howlgara. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuudna waa uu ku mahadsan yahay doorashadiisa ee looga ciribtiraya dalka al-shabaab inuu qayb ka noqdo. guud ahaan saxaabyaal halkaas aynu ku soo gabagabeynaa barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doonno waa bahda barnaamijka wada leh
nabadgelyo.